8 Oktoobar ayaa adduunka loo asteeyay in la xuso maalinta aragga adduunka. Magaalada Muqdisho maanta waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalintaas oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Caafimaadka ee Xukuumadda Soomaaliya. Waxaana munaasabadan ka soo qayb galay Wasiirka Caafimaadka, Wasiirka Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda, Wasiirka Haweenka iyo Xuquuqda Aadanaha, Wasiirka Haweenka Caafimaadka, xildhibaano, dhakhaatiir, qaar ka mid ah ururada u dooda dadka aragga la iyo marsalaf kale oo lagu casuumay. ugu horeyn Dr. Cali Baashi Cumar Rawraaye oo kamid ahaa dhakhaatiirta indhaha oo halkaasi hadallo ka soo jeediyay ayaa waxa uu tilmaamay in daryeelka indhaha uu aad u wanaagsan yahay maadaama halkudhiga sanadkan uu yahay in la ilaaliyo caafimaadka indhaha. dhanka kalena Dr. Cabdisamed Maxamed Xasan oo ku hadlay magaca isku taga dhakhaatiirta indhaha oo munaasabadan soo qaban qaabiyay dhankooda ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyay waxqabadka dhakhaatiirta indhaha guud ahaan Soomaaliya. inta munaasabada ay socotay waxaa hadal qiiral halkaasi ka soo jeediyay Maxamed oo ka mid ahaa dadkii aragga la ay ka soo qayb galay munaasabadan. carabtu waxay ku mahmahdaa asixatu taajun ala ruusi asixa la yacrifuha illa almarda. caafimaadku waa taaj saaran dadka caafimaadka qaba madaxooda mana yaqaanaan ilaa dadka jiran ma ogeeyay. gabagabadii munaasabada waxaa hadallo kala duwan halkaasi ka soo jeediyay Dr. Cismaan Maxamuud Dufle iyo xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadashay Wasiirka Haweenka iyo Xuquuqda Aadanaha Marwo Sahra Maxamed Cali Samatar. dhammaan waxay isku raaceen in laga hortago arag la'aanta iyagoo Wasaaradda Caafimaadka ee Xukuumadda Soomaaliya ka dalbaday in nidaam qaran loo sameeyo si arrintan xoog loo saaro. ugu dambeyntii Wasiiradda Caafimaadka ee Xukuumadda Soomaaliya Marwo Xaawo Xasan Maxamed ayaa ballan qaaday in wasaarad ahaan ay sameyn doonto guddi qaran oo arrintan wax ka qaban doono. sanadadii la soo dhaafay dagaalka aan ku jirnay waxa dhacay wax badan runtii oo u diiday in adeegyadii loo baahnaa in dadweynaha loo qabto ama bulshada loo qabto aan sidii la rabay wax loogu qabanin. laakiin waxaa istaagay dad badan shakhsiyaad ama dhaqaatiira ama urur ka socda ama organisation ka socda. runtii bogaadin badan iyo mahad badan ayay mudan yihiin dadkaasi. aragga wax walba waxbaa ka horeeya. waad fahmi kartaan aragga muhiimadda weyn uu qofka bini aadamka u leeyahay. qofka hadduusan arkaysanin waxa uu dareemaya waxaa ka hadlay ururka noolayaasha iyo qofkii u hadlay uu yidhi annagaa dareemi karnaa waa runtooda anagu ma dareemi karnaa. Kawsar Cabdiraxmaan Cilmi Fare, Hon Cable TV, magaalada Muqdisho.